بسم الله الرحمن الرحيم ولا شرفت الملك joogtan waa in salaami walaalkiin macal Usmaan kusoo dhawaada barnaamijkii ah nolosha dhabta oo badan aan kaga imaado dugsi Al-Khayr oo ku yaala xaafadda Hayes London. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin wadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin yiri waani nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqafka soo daacayaba waana waxay anfacaysaa dadka muuminiinta Allah subhanahu wa ta'ala rumeeyay anfacaysaa adigu waana inta tabartaada waana meeshan waxaan ugu soo gudbinayaa hadal qiimo badan hooyooyin badan oo caruur haysto iyo abayaal fara badanba oo laakiin hal cunug iyo laba cunug ay dhib badan yihiin halkaas cunuga run ahaantii waad u joodaa inuu caruurta kala qarribayo waad arkaysaa cunugii caruurtan ka hadlaya walaalayaal waxaa waaye waa 9 jir waa 10 jir waa 11 jir waa 12 jir caruurta noocaas waay daadaas waa daa yaroo gacantaada hadda ku jiro waa gacantaada ka weyneen hooyada cunugii kuwa waxaa jira telefoon ay qabsanayaan hooyadii saana ay gashay isla markii waxay wacayaan mataqaanaa socialki waxba laguma suubinin yani hooyadii waxay ku suubisi ma leh laakiin cunugan waad u joodaa wadadu ku socdo hooyadii waxay ku leedahay cunugaydi mataqaanaa run ahaantii 5 cunug ay leedahay ma ogtahay 4 waa fiican yihiin halaa marka boodbood badan dhib badan cunugii marka hooyadii way iska haysataa walaashay ani waxaan ku leeyahay waayo u haysaa cunuga mustaqbalkiisa maa ka fikirtid wanaagiisa maa ka fikirtid dalkeenna hooye maa geysid hadday meelaad geysa dalka hooye ayna jirin waxaa jira meelo boodhimaa oo aad u wanaagsan oo dalalka kale ku yeela carabaha ku yeela afrikada kale kenya ku yeela maa geysid hoyooyin badan waxay ku doodayaan wiilkan GCSE ayaa run ahaantii ayaa ka baaqanaysa war walaashay GCSE maxaad ka fikirtaa waaba u joodaa cunugan inuu meel xog ku socdeen dhowr waalid oo kolley lala talina walay idinka naftiida waad aragteen walaalaha oo aakhirkii dambane cunug meeshuu ku dambeeyey high streetu ku dambeeyey war walaal africa waxay u tahay baadiye nabigeena suban sallallahu alayhi wasallam waa kii maka laga kaxeeyey oo la geeyey baadiyaha maxaa loo geeyey baadiyaha waxaa laga soo bartaa walaashay macaane aan kula taliyo wallaahi hooyooyin badan waxaa jira caruurtooda ay dharbaaxayaan oo haddana isaga gegsanaya subxaan allah caruurtii mid waxaan ogaa hooyadiibu mobile ka qaaday mobilkiibu xoog u qaaday darbiguu ku karbaashay maamadii waa nin weyn hadda dee waxba kama qaban karto laakiin markuu yaraa waxbay ka qaban karto kuwa kale u fiican yihiin marka caruurtii hal eegaan leey anigu marka baadiyihii waxaad ka soo baran lahay hadda soomaaliya oo kale marka meeshan loo fiiriyay baadiye wey nabigeena suban sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka soo bartay baadiyi sabarkii uu ka soo bartay tafakur fi khalqi illah ka soo baranaya wuxuu ka soo baranayaa fasaaxada garashada iyo nolosha ayuu ka soo baranayaa wuxuu ka soo baranayaa dhaqanka wanaagsan wuxuu ka soo baranayaa isbarbardhigga nolosha midda adag iyo midda fiican ayuu ka soo baranayaa laakiin hooyadu waxay leedahay wiilka markaan soomaaliga jaahil miyaan ka dhigaa hooyaa saas igu dhahday anigo hooyaa saas igu dhahday jaahil miyaan ka soo dhigaa ilaahay wuxuu ogmay markii dambe meel telefoon ayadoo fadhido oo telefoon dirayso yaa wuxuu yiri hooyo cunuga guriga keenay dhahday cunug kaloo saaxiibkiisa oo hooyada raalli keena guri aan keena u yiri waa ka diiday ma yiri hooyo waa keenaya markaasaa markay telefoonka soo dhamaysay meel telefoon ku jirnay banaankan ula baxay ma xasuustaa 5 sano ka hor markaan kula talinay haakot al Usmaan waa xasuustaa hadda waa kani waagi waxaad lahayd majaahil aan ka dhigaa maanta waa kani bal ka warran dhahay xaquuqdii ma yaqaan hooyis ma yaqaano ma taqaana diriska ma yaqaano wuxuu yaqaano ma leh tuushanka iyo lacagta faraha badan isku bixisay intay ku baxday meel cidla ay ku baxday marka cunugan ka hadla waxa weeye waa cunugka dhibka badan u joodid oo hadhow hataa adiga waxaas kuu tara iska daa noloshiisii dhacaya marka waxaan dhihi lahaa hoyooyinka hala sabro oo dhacda hala xirto cunugaas hala geey meel boodhinaa jira boodhimo fara badanaa jira oo la geyn kara cunuga
markaan mid baa moogtahay laba mid sujuuga iyo midda oo mataqaanaa reer soomaaliya saaxiib aha meeshaan uu soo galay saaxiibkay sujuuga wuxuu yiri saasa meeshaan bal iga waran wuxuu yiri meeshaan saaxiib mataqaana alxamdulillah hadaan shaqaysan lacagaa taalo markaasuu yiri meeqaan helayaa hadaan shaqaysid kunbaan waa hele kunbaan kenya ku sarrifiyey wuxuu yiri elfu moja ni elfu mia na zaidi kenya wallahi billahi mina tajirika saa qariibu yiri tajirika saa qariibu وكادوا يقول لما سنة يقبل هذا بالعكس نوعاس لما سنة يقبل صاحبك 10 سنة كسر وريكت نينك ما يجي العد وده في الله كيبو صاحبك يسقط وحير ورياه والله تذكينا صومالي كيب مارت ورابطي أنا قد قبل هذا دبت السوق هذا $1 بعد اللي عيه ورياه دبت نسوق ده كل سنة ويرموت أنا مركو هاني ورابطي ماشان دبنا واكدين كرتا دابنا واكدين كرتا ماشان dalalkan galbeedka dahabna waa ka dhigan kartaa abti dabna waa ka dhigan kartaa waa adi hadba aqligaas saas ugu miisaamantid wey marka hooyooyin badan waxaan kula talinayaa war fadlan caruurtan aad guriga ku haysataan ood u joodid mustaqbalkooda oo saadaalin karta ilaaha og wax laakiin waa saadaalin kartaa cunugan meel ku dambayn doono boqolaal hooyooyin oo lala taliyo diiday oo aakhirka damana isriid ku dambeeyana jira fadlan walaalahay gabdhaheena wanaagsan oo sharafta waxaan kula talinayaa abayaalka badana waa calool adag yihiin aabihii wuxuu leeyahay cunugan Soomaaliyan geysanaya Kenyan geysana hooyada ay hortaagan markaan abayaalki diyaar buu yihiin laakiin qofka hortaagan waa hooyadii ama ka soo qaad aabihii waaba ka tagay kiliga tahay wiil yaraad haysataa wiilkan waa saadaalin kartaa maxaa u haysataa walaashay كوبركود waxay ku doodayaan macal Usmaan ma cunugay GCSE ka dhuma wararta kan meeshu ku tagay bujooda ma GCSE ka fikiri ma GCSE cunug fiican oo wada wanaagsan ku toosana looga fikiraa laakiin kan waxaad u joodaa dhaqankiisi ma GCSE ka fikirta horta future soo socdo dalkan uu dib u keenaya adiga uu dib ku keenaya asaga dibiisa keenaya ama xabsi ku dameynay waad u joodaa waa saadaalin kartaa ani caruurtan ma la isku madaray kuwa xajir adoo shan haysta hal cunuga badbood badan halkaas asaga waxba ka labaynin ha boodima ma sha Allah jira lacagta adi quur oo cunugaada sida hooyo abu ilaalinaya jira hooyo barkood waxa ku leeyahay boodinka san waay markaan fadlan waa idin bariyaa kowda hooyooyinka dhaxda xirteen hooyooyinka sabreena abayaalkana naftooda waxaa jira kuwa aan raalli ka ahayn caruurta la kaxeeyo inkastoo yar yar runaanti aba hadda kole yimid aa jiro runaanti macal Usmaan oo hooyadan mataqaana waan u baahanay caruurtan ay siiso 3 jeer aan hooyo u sheegay markii dambana farahay ka saartay caruurta ayaga maanta sanad iyo barbay maqayeen rag iska dhe rag ay ku soo baxeen abiin waa faraxsiya hooyadan maanta intay gaari badatay ay shaqo heshay iidan stress free ay noqotay way shaqaysanaysaa abina caruurtiisa meeshaas ku biishaa markuu geeyey uu soo hubsaday uu ka soo noqday biri waxay soo noqonayaan ayagoo rag ha 3 caruur ahayn hal gabar iyo 2 wiil marka walaalaha sharafta leh hooyooyinkan la hadla waliba dhaxda la dhuuqsado caruurtan halalka bood badan ha sugin intaas ku 15 cunuga meeshu 17 ay hooyo leedahay dalkii baan geynaya 17 cunug inta geyni hooyo ku barkood safaaradda inta keeno waa soo noqdeen lama geyn karo waaba runtii 17 hadoo ku gaaro waxba iskuul gooynin markaan caruurta haddii meesha dalka diinta ay soo bartaan wax badan ay soo afalaa yanduruuna ila al-ibli kayfa khuliqat buu yiri ilaahay baadiyahaas marka la geeyo cunugii wuxuu miyay eegaynin siduu ilaahay geel u abuuray tafakkur fi khalqi illah wa cunugan markii dalkii la geeyo oo nolosha dhabta soo arko wax badan baa iska bedelaya marka walaalaha sharafta leh waxaan ku waaninayaa idinkii lafteydaba caruurteena kuwa boodboodka badan ha ka labaynin hooyo fadlan waan ku baryaa waa daartu cunugaada mustaqbalkiisa inaad ka fikirtid mustaqbalkaada ka fikirtid mustaqbalka ummadda uu naliyoole inaad ka fikirtid halkaan ku dhashay halkaan waa kii ku soo noqdo laakiin u soo barbaari baan ku leeyahay بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء انت سنكسو كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما انتو رنانتي اي تاريخ دو تاريخ 19 بيشي سدحاد لبكن ايو 19 انت ايركن هويوينك اني اصبران عروض الدلكي لقيا ان كو انني انت سنكسو كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته